waxaan ku soo halqabsanayaa faarax guure oo lagu naanayso jibin waa abwaan ka mid ah golaha gaadhshansa oo heer caalami ah indhoweydba oo faarax uu aamus waa nacay aljasiiro wataad murtida ka akhriyayseen indhahaba waxaa lagu hayaa xaaladii ugu aragtiyo ujeedadu marbay edeg wadaagaane iran baan ka wada qaadayaa unugyadiisii orahdayda maqal caawa waa ababa'daydii halabuurka eedaha galaan ugub ka dhiibaayay watay abwaanadu qabiil ku ismaraadeene afkooda in badan eersatiyo ereyadoodii uraalka iyo taangiyada lagu asqoobayo imtixaanka hagayuu ahaa beliyo aafaade afareedu waa hobiyaha ogta waa beri ibtilooyinkiisa iyo madfaca lagu idlaanayo nugleyeer adduunyada ka dhaca aradka guudkiisa ataleriga gabayga ka daran loo adeegsado isin iyo abwaan waa inay aaya taliyaane ummadoo dhan baa loo idmaday eexna laga reebiye ha yeeshee abuur baa ka weynwaano aadmiga waatii etoobiya la galay oo shaliibiya arxanlaawayaal iyo maqade oonta kaa jaraye askartoodu waatay xabsiga kugu uleeyeen dhallinyaradii aasiya tagtiyo eeshiya maqane iskaanada waxaa lagu qashaa qaar abaydinae araxdiyo keliyaha waa horaa layska iibsaday afrikaa la gogoynayaa qaaradoo idile bulshadii islaamka kufrigu aabi ku hayaaye waa tii afkaan iyo ciraaq ooda loo rogay asraar ma fiicnay run baa la andacoodaay maamaha wowiye sidaan oday ka soo gaaray asxaabta laga soo warshaanuun ka maqashin irmaanka iyo gaanaha dambaa oo hal loo yiri ugaamin kuma dheelmatiyo ubatiyo laane heesaha ugaarka ayaa lagu aloosaah ajarkana mar baan loo qoray ruux asxaan falay aqoontuna marbay kula hadha aragtidaadii inaad ururisaan bay ahayd arankii lumay adoonsiga galbeed iyo halkaad uga xadgeynayso anfariirka labadaasi waa arad kala dheere ayaha dambiya foosha waa loo dorosayn afarta ergada madsadiyo iba furkeedii dheh ehelkeeda sugaanta iyo oonka loo qabay dheh afar kale afmeerkiyo wakhtigan ubaxa soo saaray taariikh asway iyo haddaan el iyo guud taabto axmed guri darwiishkiyo haddaan hawo ku ekeeyo afar kama badnayn wiilashii soo abaabulay maantana uluuf baa tihiin aan isaaminini awooddiiyo dhaqaalaha ayaad iil ku qodataane ilbaxnimada qaarkeed marba eber ku dhaamaa halgamaagii aakhiro rabbigu haw abaalgudoy ingiriisku waatuu ka kacay awdal iyo soole isticmaarkii waatay rarankii itaaliya ilayskii xorriyaddeennu waa lama ilaawaane aasaaskii calankeenna iyo udubkii loo taagay ayaantii suldaantima caddaad aragga muddah ambaqaadku soomaaliya waa ikoon yahay wax kastoo arlaa'iga ka dhacay saamax idilkiini waa inaad baqaalkiiyo nimcada dib u abuurtaan ummad waliba ciiddeeda waa ku ismanaataay etoobiya sidii loo galaad wada ogeydeenoo kenya albaabada u xiray wiilal aarsaday ajnabigu waa kaa ka baxay aqaladiinnii nfd waa kaa haramcadkii sii ugaarsaday waa kaa abraaraha ku tegey taniyo imey alifluhu waa kaa janannadii ayada baacsaday waa taa awraagada la cunay ururadoodii aarmiga wataa laga qabsaday aagaggii sare ardambaa ubada loo cabaa subag arooriyaade axankiisa waa tii la dhigay uburow kenyaan waa tay ilmada seyrayeen oo hintii shalay igad iyo wataa caalamkii ku oggolaadeen ikhtiyaarka waataa shacbigu kuwaas tareexeen oo amniga iyo xuduudaha wataa la isku aaminay abaar lama jeclaystiyo diraac omaska jiilaale asaagaana lama tugsadiyo eyle kaafirae waxa aaran lagu gaarayaa 2 ayaamood ilaahayna waa lenihiyo aayadiyo diini soomaala yaxyaabu wadani kugu adeecay iskii waxuu qabsada maanta waa ololeheniye iskii waxuu qabsada maanta waa ololeheniye cabdilaahi cali ibraahim geele iyo goliyaha boonada afkii dhaqanka shanta Soomaaliya oo magacooda loo soo gaabiyo gaadh shansa